وصحبه وسلم أجمعين. maanta oo taariikhdu ay tahay 6 February 2021 aan joogo magaalada Samareeb uu yahay waxa aan ku jiray shirkii Samareeb tirin 4 oo soo socday muddadii maalmihii dhowaa la soo dhaafay waxaan rabaa inaan marka hore wax yar oo hordhaca ka bixiyo marxaladihii aan soo marnay waxaan rabaa inaan sheego weliba inaan qaban doono shir ama kulan aan kaga hadli doono si faahfaahsan marxaladihii waddanku uu soo maray gaar ahaan Jubbaland iyo xaaladeeda halka ay soo martay doorashadii ka hor iyo kadib laakiin waxaan tan rabaa inaan maanta ku soo koobo marxaladda taagan iyo sida ay ahayd waxaan isugu nimid Samareeb 2 madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaarihii hore iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxa aan kaga hadalay waxay ahayd in xal laga gaaro gobolka Gado guddi loo saaro guddidaasi inta aan Samareeb 3 la isugu soo noqonin ay iyagu ka soo tala bixiyaan xal laga gaaro iyadoo markaa dowladdu ay ka shaqeynaysay ciidamo lagu daldalayo culaysyo badan oo la gaarsiinayay dadka iyo dhibaato dadka la dhaxdhigay muuqatayna inta ka horeysa shirka dambe intaan aan isugu imanin inta laabada qaado arrintaana madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxdii kaleba aanu ka wada hadalnay ma ayna dhicin Samareeb tiri ma aanan imanin sababo jiray awgood oo arrintii xukuumaddii iyo waxyaalihii dhacay baa sababay wax tallaabo arrintaa laga qaaday mayna jirin September imaatinkii aanu nimid Muqdisho waxaan beesha caalamka iyo xukuumaddaba u sheegay inay igu adag tahay inaan shir ka qayb galo iyadoo dagaal uu ka taagan yahay gobolka Gado maalintii garoonka aan kula kulmay beesha caalamka iyo xukuumadda ciddii aan ka arkayba waxaan u sheegay culayska naga haysta shir inaan ka qayb galo xaaladda ka socota gobolka Gadana aanan mas-uuliyaddeeda qaadi karin dood dheer ka bacdi waxaa ii soo baxday shirkaa inaan ka baaqdaay inay caqabad ku tahay masiirka ummadda Soomaaliyeed waxay noqotay inaan u tanaasulno oo aan ogolaado inaan shirka ka qayb galo lagaga hadlayo arrinta doorashada iyo masiirka Soomaaliya inta shirkaasi uu socdana midda kale ee dhibaatada gudaheeda markaa tirsanaynay ee Jubbaland ka jirta inaan gudaheeda ku shaqeyno inta ay maqnaayeen madaxdii kale aniga iyo madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo waanu kulannay waxaanu ku heshiinay inaan ka shaqeyno guddi saaro la soo ururiyo sidii xal looga gaari lahaa arrinta taagan ee gobolka Gado madaxweynuhu nin buu soo magacaabay ahaa taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin ana nin xildhibaana oo ku soo daray waxaan ku nidhi tala noo soo jeediya oo waxaad keentaan Geela Jaac Mursal iyo Fahad Yaasiin tala ku eg xaaladdan wixii hadda laga qaban karay waxay soo jeediyeen in la qabto guddi wada jir ah guddidaas inay soo jeediyaan xal sidii looga gaari lahaa arrinta gobolka Gado maamulkii sidii wax loogu qaban lahaa sidii dhibaatada taagan xalkeeda loo gaari lahaa dowladda federaalka iyo Jubbaland waxay isku haysay gobolka ku saabsan loo sameeyo oo guddidaas ay uga howlgeli lahayd muddo kooban loo cayibi lahaa in arrintaas ku dhamaato waxba mayna ka dhicin madaxweynuhu isagaa ballantaa ka baxay shaqadii aan isku ogeyn oo dhan dhinaca kale u rogay isagoo markaas waxyaalo aan munaasab ahayn ama aan madaxweynenimadiisa u qalmeynin ay noqotay waxa uu hadafka ka dhigay oo ay ahayd doodo ku saabsan arrinta Jubbaland iska daaya waxa caqabadu Gado ma ahayn Kismaayo ka jirta isagoo xusay markaas waxyaalo aanan hadda inaan sheegay ay ceeb ugu tahay oo ay ka mid tahay reer iyo qabiil iyo Kismaayo iyo hogaamiye kooxeed iyo waxaana la isku hayaa iyo waxaana la isku hayaayo aan igula hadlin cod madaxweyne uu ka hadlayay wax si jufanimo ah ku saabsan taas waxay
soo gaarsiisay inaan shirkii idhaahdo haddaba kama qayb gelayo saaxiibaday markii hore madaxweynaha puntland baa nagula jiray dib-u-heshiisiinta iyo negotiationka aniga madaxweynaha naga dhexeeyay madaxweyne qoorqoor cabdicasiis waare iyo cumar firish yaa waxay qaateen marka waliba saddexda madaxweyneha kale intii hore idinka qoys u wada shirayo isla socday waxaan rabnaa inaad shirkana nala dhammayso hawshana aad nala qaadato kabacdi annagu aanu gallo waxaan ku iga daayay arrintaasi way adag tahay ninkaana nin u socdo maaha waxaa dhacday markaa inaan sida ugu sharafta badan ee loo dhammayn karayo aan u dhammaynay isla qaadanay labada goobood sida loo qaybin iyo say noqonayso doorashadiina aan go-aankeedii 17 September sidaa ku gaaray intaasi markay dhacday waxaan ka hadlay oo ka mid ah qaybta hadalkii aan ka hadlayay madaxweynuhu stateka dhexdiisa u taallaa siduu u qaybsanayo kuraastiisa ee labada magaalo ugu qaybinaya maadaysi maya buuro 2016 waa la qaybiyey idinku kaan hadda soo yeedhin waan sheegnay waan dhammayn waxay noqotay in nooc loo kala saaro gobolkii oo qabailada qaarkood oo labada meelood ba degaya la yidhahdo hal meel bay wada degaana madaxweynuhu isagoo dan kale markaas uu riixid aa keenay saaxiibaday markay hawshii dhammaatay jawaab lagama helina nin waliba wuu dhoofay ilaa waa la heshiiskii waa la gaaray maalintii aan tagay Kismaayo 3 maalmood kadib waxaan furay shirkii golaha baarlamaanka ee heer dowlad goboleed furitaankii shirkaan kaga hadlay mowqifkayga sida wax loo qaybiyey aragtida aan qabo taasay ahayd waxay ku salaysan waan ka hadlay waxaan halka u arkayey sida waxu jireen qaybinta la qaybiyey iyo inuu madaxweynuhu walaha ku tagrifalkeedii riixideeda waana la ogaa waana hadal duuban oo yaallo ah maana ka helin wax jawaaba waxa nagu soo noqday ma jiro halkaa iyadoo taagan tahay waxaan muddo 4 bilooda ku baaqaynay iyadoo markaa 3 qodob oo ka mid ahaa qodobadii laga hadlayay doodoodu soo noqotay ka mid ahayd guddiyadii la soo saaray oo laga cabanayay sharxiinta ay ka cabanayeen oo lalahaa waxaa ka buuxa nabad sugid iyo shaqaale dowladeed oo ay ku jirtay in arrinta Somaliland iyo xalkeeda la helo oo ay ka mid ahayd arrinta gobolka Gado oo markaa ciidana lagu daabulayo caqabadaha ay jirtay waxaan marar badan meesha caalamkana u gudbinay dowladda Soomaaliyeedna kala hadlay waxa aan ka hadlaynaa waa ummad iyo masiirkeeda shir ha la isugu yimaado ha laga wada hadlo si loo hadliyo qodobadan aan ka hadlay intaas oo bilood lagama jiro waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo 2016 waxaa jiray bilaha qaarkood oo hal bil shirar la isugu yimaanay 2 goor si xal looga gaaro mas'alo yar oo markaa soo baxday khilaafkeeda saddexdan arrin oo gobolka Galatiisu ciidamo lagu daabulayo dagaal la abaabulayo xuduudo la xirayo dhibaato la abuurayo ay tahay wax ka sii weyn iska daa in doorasho ee xaalad ka sii adag lagu jiro waxaa dowladdii mas-uuliyiintii dowladda federaalka ay qaadan waayeen intii shir la isugu yimaado in xal laga gaaro ama loo yimaadaan ama aan u tagno ama isu yimaado waxaan fursad ka helay Garoowe shirkii ay qabatay Heritage kaasoo aanu isugu nimid madaxdii qaranka marka laga soo tago madaxweynaha xafiiskiisa sababta ra'iisul wasaarahana waa laga joogay iyo 2 isteed oo ahaa Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed inta kale meeshaanu ku sugnay dood dheer kadib oo labada aqal guddoonkooda ay joogeen waxaa la yidhi maxaa xala waxaanu qaadanay Jubbaland oon tanaasul ku samaynay war arrinta gobolka Gado waa caqabad taagan caqabaddaa waxaan u baahanahay in laga gudbo si looga gudbo waddankuna uu doorasho u galo khalkhal kalena uuna u sii gelin waxaa muhiim noqotay oo aanu soo jeedinay arrinta gobolka Gado in xalkeeda guddi loo saaro waqti muddo ay noqoto la cayimo laga shaqeeyo arrinta Garbaharey iyo doorashadana si waddanka doorashada uga dhacdo firaaqana uuna u soo bixi oo madaxweynaha maanta halka maalin u hadlay iyo sharci darrada waddanku uu ku dhacayeena ayna u imanin inay magaalada Garbaharey maamulkeedii guddoomiyihii degmada iyo gobolka iyo boolis la keeno Jubbaland oo maamulka la shaqeeya iyo amisom boolis dowladda ay soo wareejiso gobolka intiisa kalena laga qaado guddiyo iyo marxalado lagu gaarsiin karo dib u heshiisiin
tallaabadaa la qaado oo dib u heshiintaas weliba ay keenayso dadkii reer Gedo ee maamuladii ku jiray labada dhinacba in la isku keeno la heshiisiiyo maamul ka kooban dadkii oo dhan iyadoo aanan odhanaynin hebel xagganuu jiray iyo xagganuu jiray inaan maamul isku dhafanaan u samayno ciidankana wixii dheeraadku ahay markaas Gedo ama daawo meel kaloo bannaanka looga keenay ama Jubbaland gudaheeda ha noqoto ama xamar iyo dowladda federaalka ha noqotee inaan labadaba intii laga celiyo dadkii ciidankii la iska hor keenay dowladdu ay dhibaatada u geysatay aan isu keeno la isku dhafo la walaaleeyo wixii dhexdooda lagaga ambaajino ka dacna sidaas maamulkii lagu soo celiyo iyadoo cid walba laga tixgelinayo Axmed Qoorqoor madaxweynaha galmudug arrintaasaan u soo diray oo aanu siinay kama hadlaya hadda jawaabihii soo baxay waxay ahaayeen kabacdi intaas waxaa dhacay iyadoo weli uu baaqi iyo hadalkii taagan yahay inaanu ka hadalno oo laga hadlo caqabadda xuduudka ka jirta iyo dagaalka dhacaya iyo ciidankan isku dhaca ka iman karaya iyo ciidan inuu shabaab iyo u dhexeeyo ciidan kale oo cadow ciidankii la isaga dhigay inayna socon karayn si kontarool la-aana markaa inuu dagaal uga dhacay beled xaawo in ka badan 70 qof ay ku dhimatay in ka badan intaas laga qabtay kuwa dhaawaca lagu tuntay kuwa la dhaawac tiray laga dhigay inay yihiin wiilashii shalay dhifayska ku wada jiray nimankii jarmalkii iyo naazigii iyo dowladihii kale isbaasigii kale ku dagaalamaya dagaalkii labaad sidoodii oo kale in loola dhaqmo oo ciidankii Soomaaliyeed iyo dowladnimadii iyo waxay dowladdu sheegaysaa meesha ay ku baabaan intaasoo culays kadib oo sheegay oo loo arkay weliba lagu yiri ciidankani waa Kenya kuwana waxay difaacayaan xuduudii dalka Kenya oo Kenya waddanka ku soo duushay waxaa aad su'aal cajiib ah loo qoslahay in ka badan 700 kilomitir bay Kenya iyo Soomaaliya xuduud leeyihiin 5 kilomitir waa number aad kilomitir aad u yar in Kenya laga difaacayaa leeyahay xuduudka inta leeyna 42 goobood ay ku sugan yihiin ciidanka Kenya gudaha Soomaaliya in ku dhow 3800 askari ay ka joogaan xuduudka inta leeyahay kalena u bannaan yahay in la yiraahdo ciidankani wuxuu difaacayaa oo diyaaradaha maalin loogu soo daldalaya 5 kilomitir buu Kenya ka difaacayaa maamulka Jubbaland waa dabadhil fahmidooda jaajuus ku yahay كانوا نقولها وحن تاريخ حتى صومالي هرب صومالي أنت أصلا لو عليك كذب دجال كاس وحين نقطة اللي يسوي ما هذا هذا أسبلا كذب إن أقرانه إن نسيب إنه جودي كنا بعنا شيء لا وحنسيب إنه جودي وعشرة درجات المركب ورانو جري هكذا نقول سيدات الجودي لا يشرك عن كبارنا وحين كانت إن شرك يسوي ما هذا صورنا يلا أنا كبارنا مقدسه sababta anagoo doonayna inuu noqdo shir ballaaran international community axsaabta dadka danaynaya kulligood in la wada xaliyo sababta kuwa mucaaradka iyo musharaxiinta laftooda xaq waxay u leeyihiin tabashadooda in la dhageysto laakiin in aan meel kale intaan u soo baxno la yidhaahdo innagu aan isku koobnaana waxaan ka doorbidaynay meel agsi loo wada leeyahay iyadoo marka aniga culays ay igu ahay oo marka Samareeb iyo la yidhaahdo Muqdisho ay tan ii fiican tahay amni ahaan iyo nolol ahaan intaba oo culayska aan Muqdisho ku dareemayaan ku dareemay haddana waxaan u qaadanay riskiga waxay ahayd inaan la xaliyo guud ahaan cidda wax tabarayso intaa ka bacdi waxaanu nimid Samareeb afar shirkii ugu horeysay galay madaxweynuhu wuxuu yiri Jubbaland iyo Puntland baa shirka soo dalbaday iyagu ha sheegay waxa laga wada hadlay ani ma aha nin ay wax ka maqnaayeen ما هي مدحوينه مسؤولية صاري ما هي مدحوينه أو عقبات تاجن يوضح ماشي قصة على الجرني وحنا كوسيعة شيبسن مدحوينه مركو إيمانه إنه كوبا غشير كأنه تجي شنطة بشع برلمان كلا ولا قال الله كله وواحد جراني صد ضرب إنه مركا أنا نريد هذا الكلام بالله وحكون مدحوينه وهدي أنا جا بيسويسي صدق لنا عقبات بتاجن وحلو بان إلا جاري waddankii doorasho u baahan yahay waxa kaliya process-kan uu ku sii socon karay waa xal siyaasadeed in la gaaro haddii xal siyaasadeed la gaarin maanta baarlamaanka sharcigiisu uu dhacsan yahay waqtigiisu uu dhammaan madaxtooyada waqtiga inta la odhan
waxay ku jiri karaan oo keliya political agreement in la gaaro sababta waddanku waa fadlan isteedyadana siyaasaddii waddanka matalaya ra-iisul wasaarihii baa jooga waxaa intaa ka dambeeya caqabad baa imanaysa maanta aynu gaarna heshiis saddexdii qodobna aan ka wada hadalno saddexdii qodob waxaa la yidhi ha laga hadlo guddi ha loo saaro aniga oo ah madaxweynaha jubbaland guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha oo goobjoog noo ahaa waxaa la yidhi waxaad ka soo tala bixisaan labadii qodob ee kale arrinta ku saabsan somalilan iyo cabashada ka jirta iyo arrinta ku saabsan guddiyada doorashooyinka iyo caqabadihii laga qabay waxay noqotay inaan khadka soo gelino oo aan isugu aan la hadlo guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo aan ku nidhaahno niman yahow odayaal baa tii mas-uuliyiin baa tii dowladda federaalka axzaab mucaarad kulli intaad ka baxdaan idinku dadkaad mas-uulka ka tihiin xalkooda ka shaqeeya guddiyadooda doorashada nooca u dhacayso isu taga go-aanna la soo siiya wixii intaa ka dambeeyana go-aankaad soo gudbisaan waxaa idinla wadaagi doona maamulkeeda yeelan doona ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya tii kalena aanu tala ka soo bixinay oo aanu keennay in la qaato in laga saaro dhammaan wixii cabasha ay ka jirto ama ha noqoto ciidamada wixii ay guddiyada ku jira ama ha noqoto mataqaanaa shaqaalaha dowladda ee rayidka ah ama ha noqoto ciddii kale caqabad tabasha ay ka jirto in laga saaro oo dad lagu qanci karayo ay noqdaan dadka la geynaya meesha ee guddiyada lagu leeyahay arrinta jubbaland waxaa loo xilsaaray 4 madaxweyne puntland galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxay soo jeediyeen qorshe ah in arrinta gedo guddi 4 dowladood ka kooban oo wasiiraha ay galaan laba laga kala dhigo guddidaasi muddo cayiman dib u heshiisiin gobolka gedo ay ka sameeyaan arrinta ku saabsan garbaharre iyo doorashadu meesha ka dhacaysana inaan maamulkii u dirno guddidiina la geeyo ciidan amsom booliisana la geeyo doorashadana sida ay kaga qabsoonto waxay yidhaahdeen markaa adigu tala dib ugu noqo guddidaadii iyo dadkii kula socday la tasho sidaa hadaya waayahay baan ku oli talaan soo gaarnay halkanaan nimid waxaan u imid mas-uuliyiintii kale oo guddiyada gobol ka mid yahay oo wasiiradii ka mid yihiin waxaan idhi arrintaana jirta maxaa xala in guddoomiyaha gobolka la iska daayo guddoomiyihii degmada la qaato ciidankii aan geyno oo amsom booliisa tagto guddigii loo diro sidaa la yiro intaas aan u gudbiyey saaxiibaday haddana intaan meesha joognaa shirar la galay doodo badan baa la soo celiyey shirar badan baa laysku noqnoqday mar walba markaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlayay arrinta gobolka gedo jubbaland roolka yeelan karta wuxuu noqon karaa oo keliya inay guddiga doorashada soo dirto guddiga doorashada hadday noqotana dee waxaa meesha yaalla haddaan guddoomiyihii degmada iyo gobolka oo labaduba reer garbahareya oo ka soo jeeda la yidhi haddii madaxweynuhu intuu abaabul sameeyey waa la dhagax tuurayaa lama ogola oo ma tegi karaan ma waxaan u diri karaa guddi doorasho oo soomaali ka kooban oo soomaali qabaayil kala duwan oo laga yaabo reer garbaharre inaan cidibo kaga jirin intaan u diro miyay noqon karaan inay iyagu ka shaqeeyaan oo guddidu ayna ahayn maamul la shaqaysa sababtoo guddidani bulsho rayad bay la maamultamayaan waxaa lala dhaqmayaa maamul waxaa lala dhaqmayaa dhaqan waxaa lala tacaamulayaa dhalinyaro intaasoo dhan marka haddaan jirin maamul wixii u dhexeeyahay guddidu waxama qaban karayso haddiise iyagii aan la ogolayn guddoomiyihii iyo gobolka iyo degmada ma waxaa tegi karaya markaa guddi kooban oo soomaali ka kooban oo iyagu magaaladii wax ka qaban karay doodaasi markay dheeraatay kabacdi waxaa isku noqdeen nimankii madaxweynayaasha ahaa ee dowlad goboleedyada afarta ahaa iyo waxay soo jeediyeen haddana iyadoo markaa aan ogolaanay guddoomiyaha gobolka iftiiba la reebo guddoomiyaha degmada iyo in la qaado intana ay marto in tala ah axmed oo guddoomiyihii u kaadi degmada waxaan rabnaa guddi inaan u diray garbaharre guddidaasi inay ka soo shaqeeyaan in ay dadka la kulmaan dib u heshiin sameeyaan
ay soo jeediyaan marka bal qof kale oo aan hadda guddoomiyaha jooga ahayn ay soo barboosgareeyaan oo la yidhaha qof kalea dadkii isku raacsan yahay waxaan rabnaa guddoomiyaha degmada inaad qofka jubbaland usoo magacaabo kabacdina qofkaasi uu noqdo maamulkii jiray isaga iyo amnigiisii lagala shaqeeyo amisom boolis la keeno guddidii la geeyay sidaa ay ku shaqayso warka laygu soo celiyey waxay madaxweynuhu inuu yidhi maya haddii jubbaland ay magacaabaysaba guddidu ha soo jeediyeen odayaasha ha soo jeediyeen hadday magacaabisbu jubbaland ay ku leedahay ma aqbalayo oo dhibaataa dhacaysa ma kari karayo markaa anugu guddi inaan khatar geliyo laleeyahay guddoomiyihii ay la shaqaynaysa haddaan magacaabo dhib baa ku imaanay waxaan isku daynay wax kasta oo tanaasul aan samayn karta inaan samayno waxaan soo jeedinay oo kale haddii ay sidan tahay arrinta doorashada barintii loo kaadiyo dib u heshiin ha la galo gobolka gado oo dhan ha laga galo garbaari ha laga bilaabo ciidamadii ha la isku dhafo maamuladii ha la soo waxeeyo gobolkii ha lagu soo celiyo jubbaland gacanteeda kabacdina doorashadii inta boroseyska kale uu socday gaaraysaay ha la qabto arrintaa iyadaa madaxweynuhu uu ka goosqabsaday waxaan rabaa inaan idhaha dagaal baa jiro wiilal baa dhimanaya mushkilad baa taagan oo dhib baa jira waxaa madaxweynaha u sheegay madaxweynuhu anigu kuraasta masharax maydi dhan kursi kabaliyi laakiin waxaan rabnaa doorasha inay dhacdo xataa hadday adig kuu soo wada baxaanood kulli aad u ka shaqaysanayso waa sideeda wax kuu yaalla laakiin labaa lagu yidhi boroseyska ka dhexbaxo kaambeynkaaga ku jira intaan waqtigaa kaa dhammaan waxaan ha kaa dhacdo doorashada ha dhacdaa golo magana dhicin intaasoo dhan madaxweynuhu wuxuu ku soo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo soomaaliya ka mida oo degmo ka mida gobolka gado oo kuraas ay taallo uu yidhaahdo aniga unbaa ka talinaya haddaba madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday see buu soomaaliya u xukumi karayaa hadduu hal degmo sheegtay oo uu yidhi anaane oo anaa ka soo jeeda oo reerka yagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iskale suurtagal miyay noqonaysaa madaxweynuhu soomaaliyada kale oo dhan inuu isagu mas-uul ka noqdo oo uu yidhaahdo anaa soomaaliya madaxweyne ka deegaan iyo leebalka intaa leegna inuu ku kooban yahay wax dhici karaya maa waana arrin aad iyo aad looga waxnaa waxaan ku baaqay waxaan diyaar u ahayn wax kasta oo laloo soo jeeday waxaan u taagnayn si kasta oo doorasho nabada ay ku dhici karayso waxaan ka xumahay in maanta ciidan soomaaliya isku hor fadhiyo oo wiilashaa maanta wax qaban kara ayna jira waxaan ka xumahay in maalin walba diyaarado rasaas iyo qoryo iyo baabuur wada gobolka gada lagu sii wado lagu daldalo oo maanta deegaanada intoodii kalena ee jubbaland dalab maanta rasaas baa ka taalla al-shabaab kula dagaalamaysa waxaa la yidhi jubbaland weydiista ha idiin soo qaaday diyaarad dowladdu ima heli sakiradeeda s n a baa la yidhi waxba idiinma heli karayn ciidan s n a oo dhow la isku dilaa maxkamad la yidhi ha loo soo diro dowladdu waxay tiri uma hayo maalin walbana 5 falayd 6 falayd baa tagta oo ka degta oo shaqo ka qabata oo hubgeysa oo rasaasaysa dhibaato aada u weyn weyn waxaan diyaar u ahayn oo intaa ka hadlaynin oo meel caalam iyo madaxda soomaaliyeedba kaga hadlaynin war waddankaan hala badbaadiyo maanta waxay taagan tahay in madaxweynihii uu ballansaday baarlamaan waqtigiisii dhammaaday iyo isaga oo berri waqtigiisii ay ka hadlay waxaan rabaa baarlamaanka soomaaliyeed inaan u sheego waddankan dhibaataha gelinida su-aal baa imanaysa 4 sano madaxweynahaan arkay waddan ma maamulaynin yaa maamulayay xaggeesa waddankaan uu ku socda 4 sano kadibna sharciyadda maanta baarlamaan lagula hadlayo iyo waxaa la soo saaraya maxay noqonaysaa soomaaliyay dagaal qabiil ma aha dagaal sokeeyo ma aha 91 ma aha system iyo dastuur baan leenahay isaga hala ilaaliyo ra-iisul wasaare jooga xukuumad ka hertee karaa jiri karta waxay la tahay in dadka soomaaliyeed si degan iyo beesha caalamkaba waddankan arrintiisa looga fiirsado waxa uu xalay ninka hadlaya magaca dowladda ku hadlayay aqriyayaan wax sax ah mayna ahay inta barobooskay soo jeediyeen madaxduna waa la yaqaanaa inta aan compromise laga tanaasulna waa la yaqaanaa waan ka hadli doonaa markaan kismaayo nabad ku tago haddii la yidhaahdo taariikh dheer baan ka hadli doonaa doorashadii jubbaland baan ka hadli doonaa 2 sano ka hor oo waddanku dowladdu ay diiday in shir la isugu yimaado yaan ka hadli doonaa aad baad u mahadsantiina هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.